الرحمن الرحيم الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد الرسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro waxaan ka soo sheekeynay taariikhdii asalka ahayd oo asliga ahayd ee asalka ahayd ee ina qusaysay taariikhdii bilowgii aadanaha aan ka soo bilownay dib ugu noqonay. waxaan soo sheegnay marka buur heybe ayaan ka sheekeynay iyo waxaan ka sheekeynay nabiyullaahi aadam calayhi salaam halka uu ku aasan yahay oo ah meeshan la yidhaahdo Sri Lanka caasimadeeda Colombo ay waxay u jirtaa 170 kilomitir buurta ilmaanshaha hadal kuma jiro. waxa weeyaan buurta waxay jirtaa 7,000 oo feet ay maaragtay dhulka u jirtaa. waa buur aad u dheer, dhakadeeda sare ayuu ku aasan yahay. haddaba waxaan idin tusayaa reer galbeedka contradiction sida iskugu sameynaya, afkooda siduu isku khilaafaya oo kolba wax u sheegaan haddana ayaguna is burinaya ayaan idin tusayaa. waxay yidhaahdaan nabiyullaahi aadam calayhi salaam wuxuu ku aasan yahay Hebron ayuu ku aasan yahay bay yidhaahdaan. kow meeshan buurtan uu ku aasan yahay nabi aadan calayhi salaam a'immadeenna marka aan soo qaadano annaga ibnu kathiir berigii uu yidhi India ayuu ku aasan yahay. dhulkaas oo dhan berigaa waxaa la isla oran jiray Hindustan baa loo yaqiinay, Hindustan ayaa loo yaqiinay. maca Sri Lankada wuxuu idil Hindustan iyo Bakistan ayay ahaayeen. maca Afghanistanka dhankaabay ku jireen ayagana. Bangladeshka wuxuu idil labadaa qaybood unbaa jirtay, Hindustan iyo Bakistan. marka jasiiradan waxay ka mid ahayd berigaas Hindustanka ayay ka mid ahayd. kow taas horta waa caddayn. tan labaad, caddaynta labaad aan raacayno waxay tahay inay afkooda isku burinayaan. sanadkiiba kol baa la iskugu yimaadaa dadyooga kala duwan ee adduunka, oo ama islaam ha ahaado ama kiristiyaan ha ahaado ama buudha ha ahaado ama judaism ha ahaado, wuxuu ahaadaba waa la iskugu yimaadaa. kitaabka towraadka iyo injiilka iyo kitaabka furqaanka iyo kuwa xataa waxaa yimaada bilaa kitaabahoo yani nebi aadan ahaan u xusaya bilowgii aadanaha inuu ahaa oo halkaasan ku aasan yahay u yimaada. haddaba maca yahuudi baa timaada, kolna waxay leeyihiin Hebron buu ku aasan yahay, kolna waxay yimaadaan kolkii la xusayay ayay yimaadaan Sri Lanka. taa qabso horta maanka ku hay, arag gaal inuu maaragtay laba afle uu yahay. afkaanna waxbuu kugu sheegaya, waxbuu kusoo qorayaa, afkaanna waxbuu kusoo qorayaa. marka annaga waxaan raacaynaa tii a'immada islaamka ay qoreen baan raacaynaa. ibnu kathiir tii uu qoray ayaan raacaynaa oo ahayd, laakiin berigaas baa la odhan jiray hindiya, berigaasay ka mid ahayd Sri Lankada. Hindustan baana la wada oran jiray, wuxuu idil hindiya ayay wada ahaayeen. laakiin kol dhow ayaa laga gooyey jasiiradaas, iskeeda maaragtay dowlad gooni u noqotay oo la yidhaahdo Sri Lanka. Sri Lanka intaana loo bixinin waxaa la odhan jiray Ceylon baa la odhan jiray. marka halkaa taa aan uga hadhno. marka buur heybe aan nimaano. marka buur heybe maxaa yaalla? mucjisaad baa yaalla, mucjisaad fara badan baa yaalla. gaalada sidooduba ama reer galbeedka sidooduba mucjisaadka islaamka leeyahay ma sheegaan, ayagoo xaqiraad ay ka tahay ma sheegaan. ka soo qaado tii ciraaq, maxaa la yidhahda jaqdaankii ama jardiinkii ama beertii laalaaday oo adduunka meel kale aan ka jirin, beer iska laalaaday oo sidaa loo guranaya ya aan adduunka meel kale ka jirin. sidaa uma sii buunbuuniyaan, sidaa uma sheegaan, laakiin waxooda wax weyn ba ka dhigaan. tuuq efey meel walbaa lagu soo sawirayaa. maxaa la yidhahda statue de la liberté, kii maraykanka statueskii oo liberty statueskii ay u yaqaanaan, meel kasta waa lagu soo sawirayaa. oo maxaa la yidhahdaa big ben, sacaddii weyneeda ingiriiska, meel walbaa lagu soo sawirayaa. wax mar walba way u socotaa, laakiin taanada ma ogola.
adaa lagaa doonayaa tahay inaad ku baraarujisid dadka aad tustid مثلا أهرامتي جيزة وأنا كشكيني من الجزيرة تالا أنو إنه معنا مركة نبي الله آدم عليه السلام يبور هيبة أن معنا مركة بور هيبة وحكى له يا غنا والله قرنا يا بور إيلي هذا بهيبة كهر مجعة لما أركتيود كل دوين أيا جرتا هيبة كهر وحجري مجع كلا أيا جري بورتي أو آدم أو إيدن وليبا عن هذا أو إيدن أو هوا وأو آدم أي حاو أما معو حاو وبورتا سيدا سيلا أورنجري هيبة مقع هيبة كل دنبا أيو صوبحي مقع هيبة حتى مركا أركتي لبا أيا اسبربر سعطا أركتياشا وحيهين إن لوغو مقع داري ashuunka ama jiliyadan maartay weelasha wax lagu karsado ama weelasha biyaha lagu kaydsado oo laga sameeyo dhoobada ciida buurtaas taala laga sameeyo waa ciidaas way ka duwan tahay ciidaha kale ee meel kasta yaala oo ama dalka haadaan ama dibadda haadaan aad bay ugu duwan tahay way hadda ka hor waxaan sheegnay iminkana ku celinayaa toddoba ciid meel ay taalo dalkeena ayaa ka jirta Soomaaliya ayaa ka jirta dalka kolka aan leeyahayna waa min NFD ilaa Soomaali galbeed waa dalkeena waa dalka marka aan leeyahay marka toddoba ciid oo kala duwan oo hal wadan ama hal qowmiyad oo la yiraahdo Soomaaliya ku soo ururtay toddobada ciid halkan u baa laga arkaa adduunka kale meel walba ciid gooni ayuu leeyahay kii ugu bata ayaa laba ciid oo kala duwan leh laakiin inta badan hal ciid bay leeyihiin laakiin anaga waxaanu leenahay toddoba ciid oo kala duwan ayaan leenahay waa toddobadii ciid ee nabi aadam calayhi salaam laga uumay toddoba ciid ayaa la isku daray ilaahay uu ka sameeyay yani markii la uumayay nabi aadam intaana nafta loo gelinin oo nafta la siinin oo maalinkii jumcaha ahayd oo nafta la gelinayay صلاة العصر كدب سلي إمدا إسلام كأي وذا قبان ابن كثير يساوي جلالين يا إما كلا يعني إمامي كلا إيه قبان جمعاء اللي سكر عسين تاس إسلام كمر كمجوبته بور هي بهذا بوحة يلا أو كلا مال أدمودد سبر قين ولا جو استاجي سبر كا استاجي دي أيه وحيكون نقطة إسلام ويكون خلاص ويكون إنجكتي haddaba saantaasi ama lugtaasi cag weeyaa bini aadan ah cagtaasi cid walba ay ku istaagta way la eg tahay cid kasta ay ku istaagta way la eg tahay haddaa adiga ku istaagtid haddii ku kaa yar ku istaago ku kaa cag dheer hadduu ku istaago way la wada egyihiin waa mucjisaadka rabbaaniga ee meesha yaalla waa marka maxay ku dhacday iyo maxay looma baahno waxa weeyaan maxay hadda ka hor aan ka sheekaynay waay iyo sababta yani gaalo badan dad badan inay maaragtay kuwaasheen qaar badanna inay ku kufriyeen marka inaga ma sii raacayno tan kale waxaa meesha ku yaalla hog god marka ballarkiisa waa ilaa ma adigu 1 mitir ama wax ka yar weeye ballarkiisa laakiin sidaa buu u jeexan yahay godka dhirirkiisa haddaba dhirirkiisa lama yaqaano shiid baan qaaday oo gacanteyda leeg aan ku dhex riday waan sugay wax dhawaaqa oo soo dhawaaqay ma jirto ma garan dad kale oo meesha joogay ayaa ay sheegeen waxa la wixii lagu riday lamaba maqlo lama waxaan markaa qirtay meesha hog aad u dheer oo aan dhamaad lahayn inuu ku yaalo على تعال أنا كل مسكون الدين وكمان تلابسن وابا كبقى أنا أوصل لابت مركا بورتن كوتالا سريلانكا كوتالا وحد مودا ميل كدوان دوني ذا كلا عادي قاه ورتوا ميل مارتي وذا الدوق بورتن وذا الدوق هذا وميل الحمد لله ضرورته هوس و ايجيsid qaybta saddexaad la soco insha